بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan halkan maanta kusoo gudbinayaa war saxaafadeed aan ugu talagalay xaaladda murugsan ee Soomaaliya anigoo ku hadlayo afka xisbiga shacabka geeska Afrika ahna gudoomiyaha shacabka geeska Afrika ee dulman waxaan maanta halkan guud ahaan kaga hadlayaa xaaladda guud ee Soomaaliya siyaasadeeda mooshinka socda federaalka iyo sidoo u fashilmay iyo doorka beesha caalamku ay kala socoto xaaladda Soomaaliya ay ka wado oo ah iyadu hawsha wada iyo baaq guud oo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka geeska Afrika guud ahaan ku socda haddaan ku bilaabo xaaladda guud ee maanta Soomaaliya guud ahaan waynu ka warhaynaa ummadda Soomaaliyeed dib ka haysta ee ugu weyn maanta waxa weeye dawlad Soomaaliyeed oo dawlad qaran ah oo nolol maalmeedkooda si hagaagsan u maamusha oo si daacad ah oo hagar la'aan ah oo qarannimo u hagta ma ay haystaan dulmiga ummadda Soomaaliyeed ku dhacaya magaceeda dunida waxa lagaga soo qaadanayo iyo dhibka maanta Soomaali haysta iyo income-ka canshuuraha kaliya waddanka dekedaha iyo eerboodada ka soo gala ayaa ku filan ummadda Soomaaliyeed dhibkeeda oo dhan in lagu xalliyo guud ahaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho oo ah kuwa ugu dhiban ee dhibka ugu badan ku dhacayo iyo shabeellooyinka labada shabeelle iyo Bay iyo Bakool iyo guud ahaan Jubbooyinka haddii aan guud ahaan u dulmaro xaaladda guud ee waddanka waxa weeye Soomaaliya waxa ay u kala go'an tahay gobollo intooda badan ay gacanta ku hayaan dad ku fashilmay siyaasadda Soomaaliya xaaladda maanta ay ku jirto ku fashilmay waxa inoo muuqda shacabkii Soomaaliyeed oo aan helin saddexda waqti waxay cunaan dib ammaan oo nabadgelyo la'aanina haysato maalin walba qaraxyo meel walba dadku ku dhamaanayaan dagaal la sokeeyo oo joogto ah guryihii gabdhaha Soomaaliyeed caruuruhu ku korsanayeen oo marka meel lagu dagaalamo dab la surayo dhaqan xumo aan hore looga aqoonin dhulka Soomaalida oo ah magaalooyin dhan in dabka la suro oo la gubo oo la barakiciyo dawladdii waddanka dawladda u ahayd oo aan kaba hadlaynin waxa dhibka ummadda haysta abrooj garaynaynin dana shakhsi oo lagu mashquulay shacabkii Soomaaliyeed oo dhibkoodu heer uu gaarsiisan yahay maanta in iyagii oo ay baktigu xalaasha u yahay in malaayiin dollar guryo lagaga iibsado wadamo shisheeye waddanka gudihiisana wixii dhaqaaqaaba ay noqdaan wax qof dawladda ka shaqeeya ama dawladda ku lug leh uu gacanta ku hayo in xitaa ganacsigii iyo kontraagyadii dawliga ahaa ee shacabka Soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen inay qaybtooda ka arkaan iyo shaqaalihii dawladda iyo wax walba ay ku baysgareysmeen yaa taqaanaa iyo yaa tahay iyo reer hebel iyo dadka sadbursiga waddanka ku haya siyaasadeed inay wax walba iyagu iska qaataan in qaydhiinka lagu qaybsado deeqaha waxbarasho seminaarada dibadda tababarada aqoonta tababarada ciidamada tababarada booliiska shaqooyinka hay-adaha iyo NGO-yada iyo dawladaha kala safaaradaha ay usoo dirsanayaan Soomaaliya dawladnimadii Soomaaliyeed ee mugga weynayd oo dhan inay noqoto shakhsiyaad inay ku intifaacsadaan oo wixii iyaga soo dhaafana ay noqoto wax qabyaalad ku baxa iyo wax lacag lagu kala qaato waxaasoo dulmi ah dalalka ajnabiga ah ee maaragtay usoo dirsanaya shaqaalaha iyadoo dadkii aqoonta lahaa Soomaaliya joogaan dadkii Soomaaliyeed oo badhna ay qaxootinimo ku baaba'ayaan badhbadaha ku dhamaanayaan badhna ay gudaha ku camal la'yihiin dhibka ugu weyn ee jirana ay tahay dantii guud ee qowmiyadda dhan ee Soomaaliga ku hadasha danteedii guud oo dhan cid maanta lagu halayn karo oo hagta inaanay waddanka Soomaaliya oo xil iska saartay aanay jirin arrimahaasoo dhan dartood waxaanu ka adkaysan kari laanahay haddaanu nahay xisbiga shacabka geeska Afrika gudoomiyaheedii anigoo ah waxaan aad uga xumahay
dhibka noocaasa in ummadda Soomaaliyeed madaxdeedii ay ku daawadaan oo iyagu kuraasi ay isku qabsadaan iyo lacago ay kala qaataan iyo maalin walba barnaamij joogto ah oo bil walba dhamaadkeeda sanad walba dhamaadka bilaha ugu dambeeya lagu mashquulo mooshinno dawlad lagu rido iyo mooshinno la isku rido iyo mooshin la iska keeno iyo maaragtay wax kastoo dawladnimadii ku saabsanayd oo noqotay in intii dawladda ku jirtay ay waxba soo dhaafi lahayn ummadiina baaba'ayso arrinkaas dhibka intaa la eg oo jira waxaa noo muuqda dawladda Soomaaliya ama madaxweynaha noqdo ama xukuumadda ninka madaxda u ah ee aad moodo inuunan hilib diirnaha u lahaynba ummadda Soomaaliyeed maanta maaragtay xaaladda ku suganto maalinna aan ka hadlayn dhibka haysta ummadda ha noqdo ama wasiiro ha noqdeen ama baarlamaan ha noqdeen ama ha noqdeen shaqaale dawladeed ha noqdeen ama kuwa maamul goboleedyada sheeganaya ee maamulka qabiil intay samaysteen reer qura wax walba qaatay ha noqdeen waxaa noo muuqda siyaasadii Soomaaliya inay ku fashilmeen dadkaas oo dhan oo u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan dadkaas sida ugu xoroobi lahaayeen dhibka haysta ummadda Soomaaliyeed kaliya looga bixi karo in Ilaahay loo noqdo iyo in si midaysan wax loo qabsado danta guudna laga shaqeeyo qodobka labaad ee maanta ka hadlaya waxa weeye mooshinka madaxweynaha laga keenay madaxweynaha Soomaaliya wuu ku fashilmay siyaasadii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu helay fursad la mid ah fursadii Aadan Cabdulle Cismaan helay ee 1960 ummadda Soomaaliyeed oo baaba'san oo dhibaataysan oo 20 sano dagaal sokeeye ka soo baxday oo kumeel gaad dhowr sano ku jirtay oo u baahan madax si nadiif ah wax ugu qabata oo Ilaahay u barakeynayo dhulkooda xasan wuxuu ka door biday in uu urur diimeed iyo dan shakhsi iyo dan beeleed ku mashquulo raadadan inuu dan qaran wax ka qabto wadanka Soomaaliya uma baahna madaxweyne beeleed uma baahna umana baahna madaxweyne ku mashquulo danaha urur uu ka mid yahay iyo shakhsiyaad inuu magacyadooda soo saaro oo maalin walba shaqo siiya ama gobollo uu ka soo saaro oo qarashkii iyo lacagtii ummadda iyo canshuurta looga qaaday uu ku bixiyo inuu ummadaas ku dulmo iyagii laftigooda dusha uga keeno dad aanay rabin iyo dad aan matali karayn marka waxaa ii muuqda mooshinkaas haddii si daacad ah oo ummadda loo naxayo ay baarlamaanku u fakirayaan oo mooshinkoodu uunan ahayn dana dhaqaale iyo dana siyaasadeed oo iyaga u gaar ah oo mooshinkaas uu ku baysgaraysan yahay in ay danta guud ee Soomaaliya uga qabtaan xasan oo ay keenaan madaxweyne u qalma inuu sanadkaas ama 2 sano gaadhsiiyo ummadda doorasho xor ah oo qof kasta uu codkiisa xaq u yeesho qofku doono inuu soo dooran karo ama baarlamaan ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto inta halkaas haddii loo dan leeyahay mooshinka waa soo dhawaynaynaa waliba waxaan ku sii daraynaa in xasan aan mooshin kaliya looga hadhin ee lala xisaabtamo intii uu wadanka gacanta ku hayay wixii dambi baarlamaan ha noqoto xildhibaan ha noqoto مسؤولين كشقيس الدولة دي يضلك هالنقطة وحي قعنت الدولة دا كل انتي ومداس ظلم اللي قلي أما عيدا ما دي مدحتوية يوسف ديرير اللي با يوسف ديرير يو اللي بانا دا كلابا أبيوس كل حد دي مقالة دا قده هيدا هالنقطة أما هالنقطة عيدا ميل إسبارة أشوغا ومدى الصومالية كو أبيوس قرينة هالنقطة ama ha noqoto magaalada gudaheeda waxa dambiye ka dhacay geysanayaan ciidamada AMISOM wadanka gudihiisa ka geysanayaan inta uu xilka hayay wixii dambi Soomaali laga galay ay ka galeen ciidan qalab sida oo magac Soomaaliyeed ku shaqeynaya ama ummadda Soomaaliyeed le waxbaan u qabanaynaa oo AMISOM ah wixii dambi Soomaali laga galay in xasan lagala xisaabtamo oo maxkamad lagu soo joojiyo arrintaas waa very important in aan xasan lagu daynin wixii uu galay ama ha noqoto corruption
musuq maasuq hanti dowladeed iyo hanti ummadeed la dhaco ha noqoto guryo magaalada la iska iibsado iyo guryo dibadaha laga iibsado iyo lacago malaayiin dollar oo maalin walba lagu qarash garaynayo mooshin iyo in loo qaybiyo xildhibaano doorasho la rabo in lagaga iibsado codkooda ha noqoto maamul goboleedyada uu fanka ku bixinayo inuu ka soo saaro saaxiibadiisa ha noqoto sida qaladaadka kale canshuuraha dowladda ee dekada iyo airportka iyo waxa meesha ka socda ha noqoto in xasan lagula xisaabtamo wixii saddexdaa sannadood dhacay ama dagaal sokeeye ha noqoto ama dhiig gabadh Soomaaliyeed gabdho Soomaaliyeed oo guryahoodii ciidan magacii dowladda ku socdo oo shaarkii dowladda wato oo hubkii dowladda wata dambi ay geysteen ha noqdo waa in xasan lagula xisaabtamaa dambiyada dhacay intuu mas'uulka ka ahaa waddanka qodobkaas mooshinka halkaasaa kaga baxaya qodobka saddexaad ee maanta ka hadlay waxa weeye federaalka iyo maamul qabiileedyada waxaa noo muuqda in uu fashilmay nidaamkii Soomaaliya loogu talagalay in lagu gaarsiiyo road mapka loo oran jiray ee federaalka ahaa inuu fashilmay federaalka raggii keenay maanta waa eedeen dadkii taageersanaa maanta waa ka soo horjeedaan mar horaan uga dignay iminkana waa ka digaynaa maamul qabiileed federaal ma noqon karo reer madaxweyne iyo ku-xigeen iyo baarlamaan isku qaatay oo wasiiradiina iyagu qaybsaday oo saddex gobol oo Soomaali oo dhami ku nooshahay yiraahdo maamul goboleed baan u dhisnay waa shame weeye ceeb weeye gaf Soomaali laga gelayo weeye ma ogolin maamul qabiileed ummadda Soomaaliyeed lagu abuse gareeyo xaqeeda ma ogolin federaalna uma aragno inuu yahay kaas federaal wuxuu noqon tuulo iyo magaalo ay soo doorato cidda iyada matalaysa dad baan dhulkaba shaqo ku lahayn oo haddana sheeganaya maamul federaal ama maamul goboleed baan dhisnay maamul goboleed ma aha nin ka yimi Ethiopia ka yimi iyo nin ka yimi maaragtay kilka shanaad ka yimi iyo nin ka yimi gobolada dhexe ka yimi iyo nin ka yimi gobolada bari ka yimi maamulka ay wasiirkii arrimaha gudaha iyo madaxweyne ku-xigeen ka yihiin maamul goboleed lama dhisayo maamul geeska Afrika iyagoo la baxaa la qaatay maamul gees Afrikeed because wadamo kala duwan iyo gobollo kala duwan nimanka kala yimi ma matali karaan shacabka waamo ee dulman ee 25 sanadood dulmanaa ee dawladihii hore ku dulmanaa ee wax xuquuq aan lahayn ee magaalooyinka marna la isla sii jiray marna la isla soo jiray waxaan ka digayaa shacabka Soomaaliyeed uga digayaa iyaga oo qabiil iyo dana reereed eegaya inaynan dalkooda sidii Spain loo baabiyay inaan loo baabiin waxaan uga digayaa shaqadii Andalus ka dhacday baa ka socota Soomaaliya waxaan uga digayaa shacabka masaakiinta ee dulman ee deegaamada Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed ee 18 gobol ee hore loo aqoonsanaa Soomaaliya wixii imika ka ah Soomaaliya ku haray ee ka jooga Soomaali inay dawlad ku midaysnaadaan ogol ee Muqdisho isugu yimaada in aanay yeelin waxa maanta federaalka lagu yeeriyo federaal ma aha waa fidno ummadda la rabo in lagu baabiyo ummadda la rabo in lagu dulmo ummadda la rabo in lagu burburiyo maamul goboleedyada dadka ku hoos nool ee aan maamulkii tuuladii iyo degmadii la soo dooranin oo shacabkii qabaa'ilkii meesha deganaa dad aan ahayn lagu magacaabayo inay maamul goboleedka madax ka yihiin waxaan u arkaa inay tahay sadbursi siyaasadeed iyo qabyaalad hor leh oo la rabo Soomaaliya in lagu baabiyo oo waliba dawlado shisheeye ay dabada ka wadaan ujeedaduna ay tahay ummadan in lagu kala diro oo lagu sii baabiyo waxaan ka digayaa in maamul goboleedyada noocaas la taageero waxaan ka digayaa inaan waqti lagu lumin dadkaas inay Soomaaliya matalaana aan marnaba loo ogolaanin maadaama ay garan waayeen jiritaanka ummadda ay matalayaan ba aanay garanaynin maamul goboleedyada iyo federaalka haddaan halkaa kaga baxo doorka qodobka afraad ee rabo inaan ka hadlo waxa weeye doorka ay beesha caalamku ku leedahay dhibka Soomaaliya ka socda beesha caalamku Soomaaliya
waxay ku bixisay qarash fara badan iyo xoog badan iyo energy badan iyo waqti badan ayay waxay ku lumisay Soomaaliya in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo federaal ah oo fashilmay in ay sameeyaan wayna ku fashilmeen waxaa noo muuqata ujeedada laga leeyahay Soomaaliya inay ka weyn tahay wax dadka loo sheegayo waxaan u sheegayaa beesha caalamka ama dawladaha waaweyn ee Soomaaliya arinteeda siyaasadeeda faraha kula jira ha noqdeen ama dawladaha dariska ah ee Soomaaliya arinteeda sida diibka gacanta ugu jira ha noqdeen beesha caalamku in ay ummadda Soomaaliyeed dibka ka dayso in ay ummadda Soomaaliyeed rafaadka iyo dibka haysta ka dayso dunida shanta qaaradood ee dunida waa marna nidaam dawladeed marka la rabo wadan in loo dhiso ciidan qaran iyo ciidan booliis oo qaran oo tuulo kasta iyo degmo kasta laga soo xulay oo deegaan walba dadkiisa ciidan looga sameeyay ayaa marka hore la sameeyaa marka labaad dawlad qaran oo ummad qaran matalaysa ayaa la sameeyaa marka saddexaad fund fara badan oo dhaqaale oo dadkaas dawladnimada ku shaqeynaya ay ku hawlgalaan baa loo baahan yahay oo kaasha saddexdaaba meesha ma yaalaan beesha caalamku ciyaarta siyaasadda Soomaaliya ka disho arrinkan siyaasadda Soomaaliya lagu ciyaarayo Soomaali inta u damqanaysa ee dan kale mustaqbalka ummadooda way la socotaa mid walba meel buu ku go'doonsan yahay wuxuu ka qabto garan la'yahay laakiin waxaan u sheegaynaa godobahana laga galayo way noo qoran yihiin way noo xisaabsan yihiin dadka godobaha naga galaya ee ummadeeda godobta ka galaya ee dulmiga nagu dhacaya iyo daalimiinta qabyaalada nagu dhex baabiinaysa ee maalin walba maamul qabiileedyo iyo dawlad aan federaalna waxba ka aqoonin waxbana ahayn dana shakhsi iyo lacag urursi ku jirta lagu mashquulsan yahay lagu support gareynayo legitimacy looga dhigayo ma yeelayno beesha caalamku inay dalkeega anagoo arkayna ay sidaas ku hayso ma yeelayno waxaan uga digayaa wixii Soomaaliya ku kalifay in ay u jeesato dhinaca urur diimeedyada waxay ahayd dhibaato lagu hayo dhibaatadii dhibaato ka weyn bay dhalaysaa tan maanta socota waxaan uga digayaa beesha caalamku inay dhibka naga daayaan si daacad ah oo sax ah ay dawladnimada Soomaaliyeed wax ula qabtaan hadii kale ay noo daayaan wadankeega anagu aan xaaladayada iyo dhibkeega aan isla dabaalano qodobka ugu dambeeya ee rabo inaan ku soo gabagabeeyo waxa weeye baaq guud oo aan u dirayo shacabka Soomaaliyeed ee geeska Afrika kadib markaanu aragnay 25 sano iyadoo laga joogo markii maamulkii militariga ahaa ee Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre uu madaxweynaha ka ahaa burburkii dawladdaas wixii ka dambeeyay waxaanu darasnay 25 sano aan darsaynay dhibka Soomaali haysta iyo meesha uu ka socdo iyo cidda ku haysa iyo sida looga bixi karo waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ku nool Soomaaliya gudaheeda waxaan u sheegayaa in xalkii Soomaaliya lagu xallin lahaa aan gacanta ku hayno inaan uga baahanahay shacabka Soomaaliyeed taageero buuxda oo daacadnimo ah oo qabiil ku baysgaraysnayn oo qarannimo ku baysgaraysan oo ummadnimo iyo dawladnimo iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed lagu badbaadinayo in lagu taageero anigoo ah gudoomiyaha xisbiga shacabka geeska Afrika waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan xalkii Soomaaliya gacanta ayaan ku haynaa wixii xal lagu gaari lahaa inay nagu taageeraan marka ay ogaadaan inaan ku dhawaaqnay xalkii waxa kale oo sheegaya shacabka Soomaaliyeed dad dulman oo dawlad la'aan ku dhacday oo burbur ku dhacay oo baaba haysto oo badaha ku dhamaanaya oo qaxooti wadamada dariska lagu abuse garayo oo gabdhahoodii caarka ahaa meel kasta daadsan yihiin oo ummadnimadoodii baaba'day maadaama aan nahay rag baa idin kacay ragga idin kacay taageera
si daacadnimo ah u taageera ummadnimadiina iyo dadnimadiinana ilaashada waxaanan kusoo gabagabaynayaa hadalkaygii ummadda soomaaliyeed qarannimadeeda iyo jiritaankeeda iyo ummadnimadeeda si ay u badbaadiso waa in loo noqdaa in ilaahay loo noqdo jiritaanka ummadnimo wuxuu ku xidhan yahay inaan ilaahay u noqonno maadaama aynu nahay dad muslina inaynu ilaahay dambi dhaaf weydiisano inaynu ku midowno dan guud oo aynu danta gaarka ah iyo danta qabaa'ilka iyo danta shakhsiyaadka ah aan ka baxno gabagabadii waxaan la hadlayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ee ka soo jeeda geeska africa kuwa qurbaha jooga ee taageeraya maamul qabiileedyadana waxaan leeyahay ilaahay ka baqo ummadnimadiina iyo shacabnimadiina iyo dadkiina jiritaankooda badbaadiya waxaan guud ahaan kusoo gabagabaynayaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ku midoobaan dan guud ummadnimadooda iyo jiritaankooduna ay ku xidhan tahay midnimo ayna ku xidhnayn tafaraaruq iyo maamul qabiileedyo inayna ku xidhnayn in ummad waxay ummad noqotaa oo ummadnimadeedu badbaadaa oo ay dhaqaale iyo siyaasad ahaan iyo ummad ahaanba ay u horumartaa marka ay ku midowdo danta guud oo ay ka baxdo arrimaha khilaafka iyo qabaa'ilka iyo ummaduhu ku baaba'aan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته